munaasabad ballaaran oo kulmisay bulshada haldoorkeeda ayaa xalay waxay ka dhacday Hotel Green Palace ee magaalada Hargeysa taasoo lagu soo bandhigayay buug laga qoray Allah u naxariistay aabihii farta Soomaaliga Muuse Galaal Cali taasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya asxaabta siyaasadda wasiirro ka socda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir dawlayaal ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay abwaano qoraayo taariikhyahanno iyagoo dhammaantoodba ku dheeraaday taariikhdii uu lahaa Allah u naxariistay Muuse Galaal Cali sidoo kale waxaa isna halkaasi ka sheekeeyay taariikhda buugga qoraaga buugga Maxamuud Xaaji Ibraahim waa dhageysatay barnaamijyadii faraha badnaa ee uu duubay dadkii murtida lahaa uu ka duubay waxaan ku celinayaa halganka uu u soo maray ummadda tan hantida ay leedahay hadday dhaqan tahay hadday gabay tahay hadday kaydin tahay hadday xiddigis tahay hadday wixii ay ummadda tani lahayd ee ka dhaxeeyay halganka u soo maray murtida uu ka tegay ayuunbaan in yar iyo wax codkiisi u eg aan yara canjiro waxaan u malaynayaa inaynaan muuse aanan mateli karin laakiin waa canjilaya gabayga waxa keenay عمر دير عمر والله قرانيا وانين خلق كان لحدن كي لغا شرحي وانين اقوياها وانين معلنها عمر باوح ويدي عمر وحوي موصو قاتل سكتا شاك ويوي هذا شاك سكتا يسو هذا سكتا يني واضمان يسال يا هذا دمتانا ومدتان كما maarato wixii umada tani lahayd waa la dhimanaysa marka Umar buu la hadlayaa wuxuu leeyahay Umar waa intu jaado kaliya ma hay wuxuu soo marayna dadka shucuurtiisa iyo dareenkiisa hoosana waa cabiray Umar naftayda dayacan difta waa xuyaalay shirkayga daroorta oo ekataha waxa saaray waxay doorshay وما سلام دون استذكار وحفليا هكذا موسى إيجا قوم بدن يا هل تجعوا ولسه شقيي لسه صاحبي لكن أنا مقدر يا أنا بقول هذا الكفاية بيان كارن هبين هوري سعيد صالح وحوي موسى أنا جو أن أرك بامبر والراديو هكذا سوا كبر وقرآن كيسان كبر أنا بعد هذا كنداري كأولام منا موسى أنا جو يان أوان ولي كراتسن يان كتبي وإنجليز كتوغوري لكن waxaa ku bartay ajaladihiisii sheekooyinkiisii suugaantiisii murtidiisii tuu isagu alifi jiray iyo tuu dadka ka ururin jirayba halka buugga oo aan dhawaan bilaabnay oo 1906 aan Maxamed ku kulannay Finland oo markaa uu ku hayay niyadda وقت الأربعين مقابلة كيف بدنا نستمر لكن هو بوليس كيسي يدبرين كيسي هوش كيسا العيها كيف سايم هي محمود بحكي على استقالة مقعيسة استقالة أنا هو أدبت هاينايو وأكو قايدين مركا وفوقا كلام أنا بحث كم مرة يا باقولها إنت أصلكم نسوي مركي دمان دابعات يسوارون وأني يو لا يزاليك هذا أي محمد عشور يدك لك شخصا waxa aanu isku geeyay xoog inuu soo runtu ugu ahayd muuse macallin fasalka gudihiisu ku xiriir yahay oo inta uu gudbiyey an fasal afar darbile baan ku gudbin buu ahaa fagaaraha uu fadhiyo banaanka uu joogo makhaayadda uu joogo mar walba waxa uu ka sheekaynayo culumtaa la sheegay ayaa marba midkii wax laga weydiiyey ama ku soo dhaca siduu u oran jiray uu muddooyin dhan fadhihi jiray waqti maalinta waxaan arkay oo dareemi jiray wax waliba sheekadaa iyo gudbintaa waa ku dhaafi jireen xilliga salaadu soo gasho buu u soo jindhaday
ويرى وصلاتي لكن سيئو رونانا كسيرو هاولك كسيرو وحاول بنا يو ورنا يو أيام كذا يبقى كنت أكبر سامحني وايو مرحوم كما تحضر اليوم الله يرحمه مرحوم جامع موسى إسماعيل قلال موسى إسماعيل قلال waxaan bari u haystay inay aadan Ismaaciil walaalkiin sida ay isku dhawaayeen sida ay saaxiib u ahaayeen waxaanu Allah yarxamo marxuumku yoorin jiray ade marka inuu xaafadayda yahay in badan u haystay laakiin inta ay gaar ku dhacay قفا احترام وين يتلقعين وين وهيو أيها مرحوم وحن احترام هو هيا قلت أفسمالي لنا شرف ويا لما احترام هو هيا وحوها قف داخل هنا تعل وحوها قف سودان تعل وحنوها قف كدر سري علمنا مدننا أقوم بدن علم بدن والله يا بدن يلا تقول لي أورا ما هي وبيجي الرمية ما حاكمنا حدقة astrology وحعروف الجوز وضع العين مثل ما بيرك أنا الله وحصول ده وسجل الموحي كويا لحسن لو دي لحبلو بكي دي تقال تلفزيون كيسرع سوبري كيتر سيد الله يطلع ده وسجل واني كيبراني أقول ني والله هذا فبينا واني كبراني يا سوبري من سكوها وما ضمانته وحضر يبراتين واحد جايب الحديدين علم اللغة كيميائية شخصية سنوية يقولوا إيه هو صوب عليه إيه هو صوب عليه أي قرطك البدء يكون هذا يسولنا كيف لا يسكر في واحد مسكر على المبا إحنا ما تقول بالقرآن مسكر على المعنى المبا إحنا هي بالواقع كان مسكر على المبا هي أطراف كل النقطة فيها في الصومال رحمه الله يبدأ بقول كأوي هو صمالي كل واحد لاعب كل ما عرفتيه قال سبعة كنت جاب واشرف وياها هو نو وبشر هو نبض هو شرط الكيسكار تلك كيس كيسيو قال أنا على أفضل والسلام عليكم. خالي عبد الكريم حاجي شبكة عالمية هلال نيوز هوتيل جرين بلاسا مقالة هرقيسة.